Soomaalidu inanka ama ninka inanta laha saawaya inuu ilaaliyo ayay kula dardaarmi jireen waxa oran jireen saddex kaama hadhaan habaar waalid iyo hadimo xoolaad iyo hansi gabadheed saddexdaas kaama hadhaan dumarkana waa la dardaari jiray oo waxa la oran jiray laba aamuskay ku wanaagsan yihiin waa doqonka iyo dameerka dameerku hadduu ciyo waa la cawd bilaystaa doqonkuna qalabad buu jebinayaa oo hadalkaa laga ilaaliyaa labadaasi aamuskay ku wanaagsan yihiin labana socodkay ku wanaagsan yihiin oo waa biyaha iyo culimada socodkay ku wanaagsan yihiin labana fadhigay ku wanaagsan yihiinoo waa dumarka iyo dabka dabku hadduu hulaaqo qarla dhan buu biiyaa dumarku hadday lug furtaanna suuraaf bay noqdaanoo abda male iyagana dardaarankaasaa la siin jira waa xilliyada guurka ka horreeya marka guurka lagu dhex jiro mahmah cajiiba baa jirta oo noloshoo dhan taabanaysa waxaa la yidhi kow baa u xun labana labaa u xun saddexna saddex baa u xun afarna afar baa u xun shanna shan baa u xun kow baa u xunoo nin dabeecadii dad ka saartay baa u xun aniyo kaa lama hadlee naga daa xarniyo maalin buu na soo eegay naga daa xarni waa xera xun kow kaasaa u liitaa la yidhi kow labana labaa u liito oo laba isqaba oo sirtoodoo dhamme bannaanka taallo maalin walba waa loo gar qaadaya abda male labana labadaasaa u xun baa la yidhi saddexna saddex baa u xun baa la yidhoo waa saddex habloodoo walaalaahoo soo duday oo aqal wada seexday baa la yidhi oo googarda iyo kabaa iyo shalmadda isku qabsaday waa xerajin waa meel aan abda lagu lahayn ila soco afarna afar baa u xun baa la yidhioo waa afar wadaadoo isku qol seexday baa la yidhi oo midba mar aqiimay midba mar tukaday midba mar kacay iyada caynteedu meel lagu miyir qaba maaha shanna shan baa u xunoo waa shan nin oo walaala ah oo kala caloola baa la yidhi oo bilaa maqaalufo ah shanna shantaasaa u xun waxay naga qusaysa innaga halka laba u xun waa fahanteen soo maaha waa mahmaahihii sirta in gurigu dhisnaado lagu ilaaliyo waa mahmaahii cajiibkaa ee soomaalida waxaa ka mid ahaa markay hooda iyo haynta joogto inaan lagu xisaabtamina ninku inuu wuxuu helaba siiyo waxaad heshaba ku hurguf wixii aad aysun baad siinaysa laakiin markaa dee ilaahay kuu furo ku hurguf saddex abwaan baa la yidhi midba dumarka warran wuxuu yidhi hoodana u badi hadalkana u yaree halla jaafaa jirdin buu yidhi muranka ka ilaali qabistu sir bay leedahay haddaad dumarka la muranta dee indhaha isla gelaysaa laba murantayna masawday baa la yidhi waa isku ag dhacdeen waad fahantay soo maaha hoodana u badi hadalkana u yaree abwaankii kalena wuxuu yidhi indoodana u dhammaystira afkaagana ka hayso kordhi baa la yidhi wuxuu yidhi ninka labada fidca ula tirsada kaasaa iga yaqaana kaa weydiiya ninkii saddexaadna wuxuu yidhi ninkay ilmo ka dhammeeyaan ayaa ilmo ka dhammeeya waad fahantay soo maaha meeshan dulqaad baa laga dheelaa nin weynoo gaadiidaa la doonaya waa mahmaahihii reeraha lagu hayn jiray sidoo kale soomaalidu waxay tidhaahdaa mahmaahaha xalka noqonaya laba dirir baa lagaga midha dhaliyaa waa naftiyo shaydaanka sutidaa loo qabtaa labana dadaal baa lagaga midha dhaliyaa waa diintaada iyo dunyadaada
labana dulqaad baa lagaga midho dhaliyaayo waa afadaada iyo eheladaada waa labada kuugu dhow eed mar walba ku cindan tahay labadaana dulqaad baa lagaga midho dhaliyaa